الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan barta hanaqaad idinku soo gudbinaynaa maanta qaybtii labaad ee malakul mawtka sifaadkiisa iyo siduu u dhiman doono إبراهيم عليه الصلاة والسلام على رسولنا أفضل الصلاة والسلام أيا مركي الله كل من ملك الموت كويدي سيدي أياد قفك مؤمن كان نفط وقادا مركا سقولها إبراهيم وسيجيتسو مسوحوا بأركيبا ملك الموت كي وآد وقروح بدن وآد عرف أدقون أي كسو كان كميسو ودرع عدنا حدن مركاسو إبراهيم عليه السلام وحا وقودها والله قفك مؤمن كأه وناك كست أو أدونك كو أركي وجيغاغا هاتو أركو أيا إلو سينيا markaasuu haddana ku dhahay sii jeesa mar labaad isagoo malakul mawtkii oo lugihiisu dhulka yaallaan madaxana samada kula jira oo aad u foolxun aad u madow tin kasta oo jidhkiisa ka mid ahna uu dabsaa ugu holcayo markaasuu ku dhahay ibraahim wallaahi qofka gaalka ah dhibaato iyo shar waxa uu filan wejigaaga inuu arko sifaadka malakul mawtka lugihiisu waxay yaalaan dhulka ka toddobaad madaxiisuna carshiga raxmaanka ayuu ka hooseeyaa wuxuu ku fadhiyaa kursi nuur ka samaysan malaa'igta ayaa bidix iyo midigna kaga hareeraysan oo sugaya amarka ilaahay waxa dhinaciisa bidix ku yaala geed iyo loox aad u barakaysan oo waaweyn waana malaga kaliyaata ay malaa'igtu ka argagaxaan aadna ay uga cabsadaan malakul mawtkuna sida noolayaasha kale oo dhan ayuu u dhimanayaa ilaahay subxaanahu jalla fi culaa iyo isaga kaliyaata ayaa wax nool hadhay markaasuu alla subxaanahu jalla fi culaa weydiinayaa ayaa hadhay markaasuu dhahayaa ilaahayow wejigaaga sharafta leh ee aanan dhimanaynin iyo addoonkaagan ku hor taagan ee daciifka ah kaliyaata ayaa hadhay markaasuu allah subxaanahu jalla fi culaa ku dhahayaa malakul mawtka adigana aniga ayaa ku abuuray sida noolayaasha kale aan u abuuray ee dhimo markaasuu malakul mawtkuna halkaa ku dhimanayaa markaasuu alle subxaanahu jalla fi culaa samooyinka gacantiisa midig ku soo qabanayaa walahu almathalu alaclaa ilaahay wax u dhigma ama wax la mida ma jiraan gacantan bini'aadanka oo kalena maaha waa gacan ilaahay u qalanta markaasuu ilaahay subxaanahu jalla fi culaa gacantiisa ku soo qabanayaa samooyinka bidixdiisana ku soo qabanayaa dhulalka markaasuu adduunyadiisa u jaleecayaa alle subxaanahu jalla fi culaa uu ku dhahayaa adduunyooy aaway webiyadaadii aaway dadkii ku camiri jiray aaway dadkii kugu kibri jiray aaway boqorradii aaway kuway dhaleen aaway kuwii xadgudbayaasha ahaa aaway kuwaan anigu abuuray een u nimceeyey ee khayrkay caabuday liman ilmulku alyawm ayaa maanta iska leh xukunka markaasuu ilaahay waayayaa cid u jawaabtaba sababtoo ah makhluuqaadkii oo dhan waa mayitiin way wada dhinteen ilaahay subxaanahu jalla fi culaa ayaa isku jawaabaya oo dhahaya almulku alyawma lilaahi alwaaxidi alqahaar boqortinimada iyo xukunka maanta waxa iska leh allaha kelida ah ee dirqiyaha ah haddii aad ka hesheen muuqaalka hanaga ilaawina like subscribe iyo gambaleelka inaad furataan si aad ula socotaan muuqaaladeena cajiibka ah ee dib ka imaanaya runtii waxay ii tahay dhiirigelin si aan geerka u sii gishto haddii aad rabtaan inaan qaybo badan oo kale ka samaynana hoosta commentiga noogu reeba insha allahu tacaala waan soo samaynayaa intaan mar labaad ka kulmayno waxaan idinkaga tegayaa fii amaanillaah